fanaanka maxamed bk ayaa lagu qabtay hees asagu uusan lahayn balse uu sheegtay laxankeeda iyo erayadeedaba asagu inuu sameeyay heestan oo hore loo qaaday ayuu fanaankan maxamed bk ama maxamed bakeeri Soomaalida ugu yeerto ayaa qaaday heestaas isla markaana sheegtay inuu asagu leeyahay Masal Media ayaa heshay heestan waxaana in la wadaagi doonaa heestaas uu qaaday maxamed bk balse uusan lahayn oo uu sheegtay وقيعيل بانقبا وقيعيل بانقبا heesta uu hadda maxamed bk isla qiireynayay ee aad soo aragteen waa hees hore loo qaaday originalkeeda horena waxa iska lahaa heestaas fanaanka lagu magacaabo filfil waa erayada halka uu ku luuqeeyay abwaanka wadnoole balse intaan u gudagelin xogtaas oo dhan halka aad nagala socotaan waa Masal Media fadlan hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana furo si aad ula socoto xogihii ugu dambeeyay oo aan baahino haddana waa tan heestii oo dhameystiran oo hore loo qaaday ظروفتنا ويهوتا وقيعيل بانقبا وقيعيل بانقبا war ileen tanoo kale hees kale oo uu xaday maxamed bk ayaan haddana idin maqashii doonaa heestan waxaa hore loo qaaday sanadyo hore iyo qarniyo ugu yaraan 25 sano ka hor ayaa heestaas la qaaday maxamed bk ayaa hadda qaaday wuxuuna sheegtay inuu asagu leeyahay war ileen tanoo kale war fanki xitaa waa la iskugu yimid waana la iska xadayaa war lama kala xishoonayo war Soomaaliyey war waa wareey war aaway afaabugu fan war abgoonintii aaway war dad wax qabta ma jiraan miyaa ninkan هونوي معان كاديري فقبان كليجيسي هالابصدو هودا بيني ديشي سيدين كوغو هلي كرا أمان كوغو هانان كرا سيدين كوغو هلي كرا أمان كوغو هانان كرا بالفضيحadaas arka haddaba heestaas hadda soo maqasheen oo maxamed bk qaaday waxaan haddan idin maqashii doona originalkeedii hore iyo qofka qaaday iyo cidda qaaday iyo sababtii ku timid iyo meesha laga qaaday bal la dhageysta waa tan ayaduna وقيتي جوهي معاك بكاديري فقبان كليجيسي هنحسنون بيني دشي سيدي كل هليكا أما كل هليكا سيدي كل هليكا فانا ولا فريق ما قضى يا إسجارة أبو باي بليلي دقيست هدنا محمد بيكي أوله هذا ضي محشانة يضي حشات يمال بصارتي وحلية هيستن وحاسمية أبوان كودا حديها جيس كلا أبوان كلو مجعابو لاب صالح وحنا كله قايي أنيجا وحنا كنت مدهستان قصة نبأ هذا وقصة نبأ وحلي وقصة نبأ waxaan rabaa inaan si fiican ay la dhuuxdo heestan bilowgeeda ilaa iyo dhamaad maxamed bk inuusan ahayn nin xishooda maxamed bk waxa lagu eedeeyaa inuu yahay nin cunsuri ah oo heesaaxada dadka Soomaaliyeedna neceb haddana wuxuu ku darsaday inuu xado heesihii fanaaniintii hore bal dhageyso waa tani waxaan ku soo gudanayaa hees qissa dhaba oo sameeyay xasan dhuxul laabsalax halkaas ku sugnaatay baan hayaan ugu soo jiraa buul duruuftuna way hortaal huqiiciil baan qaba heestaasan ku soo gabagabin la hayaan waa hagaag alalas kabaxaya waa aroos heestii hadda aan idin maqashiiyay ee waa aroos oo maxamed bk qaaday ayna uuna sheegay inay ku timid qissa dhab ah oo uu sameeyay laab saalax waxaan hadda idin maqashii doonaa heestaas oo la qaaday oo aroos laga qaaday una ku luuqeynaya wada noole waxa heestan iskale sidoo kale erayadana iskale abwaankii sameeyay heestii hore ee abwaan filfil haddana waxaad dhageysataan heestaas oo ku luuqeynayo wada noole waa heesta originalkeedii maxamed bk ayaa xaday nin dheer iyo nin dhinta loo qabsadaa la yiri
jacayl waa laba maqaaday guur waa aadaan waa muha waa laba haddana waa laba fadlan si aad ula socoto xogaha aan baahino subscribe saaro channelka Masaal Media bihi kalgacal la ilmayn jira farxad ololaye waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udub waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udub dhigi